dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo Sabti ah dib u fasaxday jajabka lacagta danabeysan oo hore waxa nabtay wixii ka yar $1 si loo socodsiiyo isticmaalka shilin Soomaaliga. Wasiir ku-xigeenka Maaliyadda Puntland Cabdi Ibrahim Warsame Qowdhan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Garowe ayaa shaaciyay in dib loo fasaxay jajabka dollarka danabeysan ee mobilka la isugu diro. Wasiirka hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dowladda ay gacanta ku hayso lacagta shilin Soomaaliga taasoo ah talaabo hore loo qaaday wax walibana sidii hore ay ku soo noqdeen. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan ganacsato ku sugan Puntland oo iska qubay lacagaha shilin Soomaaliga oo duugo isla markaana siyaasadeed oo gaar ula jeeda talaabadaas. Wasiirka ayaa ku andacooday in lacagaha shilin Soomaaliga laga isticmaalo magaalooyinka Puntland iyadoo aysan jirin lacag shilin Soomaaliya oo ka shaqeysa gudaha Puntland. Marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan maanta bulshada reer Puntland aan u sheegno inaan u fasaxnay nidaamkii aan awal hakinay oo $1 iyo wixii ka yaraa inaan dib u fasaxnay oo ay isla shaqeynayaan laga bilaabo maanta oo ay isla shaqeynayaan lacagtii jajabka ahayd ee $1 ka yarayd lacagtii electronic ahayd ee shilinka ahayd cidii rabta iyo lacagtii noodka ahayd ee shilin Soomaaliga ahayd intiiba inay isla shaqeynayaan sidaa waxaan u sameynay inaan cid walba meeshii joogto ugu fududeyno mar haddaan ujeedka aan kalaha laga gaadhay inaan cid walba ugu fududeyno meesha ay haysato meesha ay joogto in iibku uu ugu fududaado taas horta waxaan rabnaa inaan sida dadka ugu sheegno laga bilaabo maanta inaan saa ugu fasaxnay barlabaadka waxaan rabnaa dadka reer Puntland oo aan guddiga iyo guud ahaan dowladda Puntland ay danahooda ku mashquulsan tahay inaan ugu baaqno in si wada jiro looga wada shaqeeyo dana siiba arrimaha xagga lacagta ku saabsan lacagta habka ay u shaqeyso uu ka duwan yahay hababka kale ee la siyaasadeyn karo lacagaha waxa saameyn ku yeesha wax yar oo xitaa anaga madaqadeena ka dhicina meelo kale ka dhacay ayaa saameyn ku yeelan kara oo wax ka bedeli kara marka dad badan ayaa ay mararka qaarkood ka muuqataa siyaasado inay arrimahan lacagaha isku dayaan inay dhex geliyaan dadka waxaan rabnaa inay ogaadaan waxa ay ku ciyaarayaan inay tahay nolosha aabahood iyo hooyadood iyo ilmahooda sababtoo arrimaha lacagta iyo dhaqaalaha iyo macaashadu waa sensitive marka dadka ay la sahlan tahay oo sida sahlan hadallada isaga yiraahda oo sida sahlan wax isaga qora waa uga digaynaa arrimaha waa uga digaynaa in aanay ku khaldamin meeshii kale ay luuq iyo siyaasadeed ka dayanayaan ha ka dayde waa arkay dhammaan dhawey dad lacag beri hore baabaaday oo xilligii dowladihii hore soo baabaaday oo gogoday intay milyan ka mid ah furfureen oo waddo ku daadiyeen yidhi lacagtii baa la qaadan waayay ma garanayaan inay nolosha dadkooda cadow ku yihiin dadkaas marka waxaan leenahay arrintaas waa in laga waantooma waxaan kaloo rabaa inaan dadka u jeediyo halka uga jeediyo qiimaha macaashada waxay u baahan yihiin in dadka loo ilaaliyo Khadra Ali Jimcaale VOS TV Muqdisho.